madaxda madasha mucaaradka iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa la filayaa in dabayaaqada bishan Sebteembar uu shir uga furmi doono magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Haddaba waa maxay ujeedka kulankan, cidda soo agaasintay iyo asbaabaha looga gol leeyahay ayaad ku ogaan doontaan warbixinteenna ee fadlan nala joogo oo u faafi saaxiibadaada kugu xiran mareegtan Facebook. Maalmihii iyo muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay siyaasiyiinta mucaaradka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland abaabulayeen kulan weyne gogoldhigiisu yahay magaalada Garowe, kaasi oo ay mucaaradku kaga tashanayaan ayahooda siyaasadeed iyo sidii arrimaha doorashooyinka looga adkaan lahaa dowladda dhexe. Madashan ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa dabada ka riixaya dowlado shisheeye oo ay ugu tun weyn tahay dowladda Imaaraadka Carabta, balse waxa ay wararku sheegayaan in mucaaradka qudhooda ku kala aragti duwan yihiin ka qaybgalka kulanka Garowe. Sida ay xogo hoose sheegayaan, siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweyne hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isagu ka cagajidaya ka qaybgalka gogosha Garowe. Ila ka agdhow Maxamed Farmaajo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweyne hore Farmaajo uu ka cabsi qabo inuu guuldarro siyaasadeed kala soo laabto magaalada Garowe haddii uu ka qayb galo kulankaasi, maadaama madaxda Imaaraadka ee kulanka qabanqaabinaya iyo madaxweyne Farmaajo uusan cilaaqaadkoodu wanaagsanayn.